صدق طبعا كاسن ونمكي أصلا نول بهبل كيسيبا لو قرني كان هو محمد بسي كان هو عبد الله جود عبد كان هو محمد شيخ مختار كان هو عبد الرحمن ديري ودعض عبر قادشة له dad badan ah ay wali hadal hayaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Dhagaxbuur qisada warbixintan waxay sal u tahay afar nin oo ka tirsanaa jabhadda xoreynta ee ONLF oo muddo iminka laga joogo 13 sano ka hor ku dhintay deegaanka Isdabadeg ayaa dib loo soo faagay xabaashi ay ku jireen markii la arkay in xabaashu ay duntay si dib loogu aaso hase yeeshee mucjisadan ayaa lagala kulmay meydka waxaase sharaxaya maxamed ani oo ka tirsan ururka ONLF kana hadlaya meydka oo dib loogu aasay Dhagaxbuur magacyadoodii iyo mucjisooyinka lagu arkay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Guuleed waritaan kana soo wacdeen wareysigana waad ku mahadsantihiin waxaana salaamayaa dhammaan bulshada laga yaabo in ay dhageysato salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxa weeyaan 2009 bishii labaad 2009 laga bilaabayaa ilaa iyo hadda marka waa 13 sano oo 2 bilood ka maqan tahay intay godka ku jireen afarta nafti hore waxay joogeen meel Isdabadeg la yiraahdo halkaas ay arrin dad isku dhacay bay kala xalinayeen ciidan yar oo kooban oo ay ugu tala galeen inay odayaashaasi soo raaceen oo inay wax xaliyaan bay meesha u yimaadeen halkaas bay geeridii iyo shilku ka dhacay cadawgii ay la dagaalamayeen baa xogteedii helay dagaalku halkaas ka dhacay dad kala yar bay ahaayeen oo madax oo soo urursada khilaafka dartii meesha isugu yimid siday ku shiideen asaas ay wana geeri xaq ah oo tii la sugayay bay ahaayeen dhamaantood waxay ka tirsanaayeen jabhadda ONLF Soomaha مسؤولين توصل رئيس أورك عين عبد الله جود عبد الله عبد أورك وها حرمتونا كسعودي محمد بسي وحكي الدبادة كل كورونا طريقة بادي مكملها عبد محمد شيخ مختار وها طريقة قيبة اللي جود الشيء الدجال كان عيلفتي وحيستي وحكومي ساس بيان صدقا أفرتان يركا كلنا هذا ما أقول سكان مركا أفرتان إنه كتير سنة جمهدا waxa markii dilkooda ama inay dhintaan ama shahiidaan waxa dilay Soomaha ciidankii Itoobiya halkaas dagaal ku dhex maray waxa dilay ciidan military ah oo ka soo baxay Dhagaxbuur waxay joogeen meesha la yiraahdo Isdabadeg korkeeda joogeen dadka kale meel isma khadar la yiraahdo ciidanka Itoobiyan ku degay military buu ahaa sanafarkii diiradiisa ku fiiriyeen waxay arkeen saddex labada nin ee waardiga ee buurta kor saaran halkaas ku soo hawl qaybsadeen xabadu iyadoo waardigu una arag bay xagga dambe ee madaxda fadhiday ka bilaabantay waana la sheegayaa dad kale wax ka sheegayna waa la sheegaa laakiin sida rasmiga ah inuu ognahay waxa weeyaan sidaas waa inuu ciidanka militariga dilay una soo hawl qaybsaday markay dadka kale ay ka arkeen sanafarkii ku arkeen saas oo dagaal ku bilaabmay dagaal ballaaran buu ahaa oo waxa weeyaan iyadana wajah badan loogu geystay laakiin ay afartan naftuure qaariga inay meesha kaga baxaan marka meesha lagu aasay ku dhinteen Soomaha meesha kuwaas waxa lagu aasay Isdabadeg agteeda meela waxa lagu aasay xurfad yar oo aan sidaas u weynayn duruuftuna ma saamaxaynin in mataqaanaa in badan godka la dheereeyo ama xabaal askaran oo fiican loo sameeyo sababta dadku waa cabsanayay ninkii dilay kama fogeyn dadkuna cabsi bay ku noolaayeen oo dadka xilliga waxba lama aasi jirin god yar baa loo faarfaaray halkaas ay ku jireen nasiiboonaag ayaanta dhaweyd baa loo kacay waxa uu kacay dad baa soo saaray maxaa dhaliyay in meedka meeshii laga soo saaray hore loogu aasay waxa dhaliyay xabaashi baa duntay xabaashaan ahayn xabaal laga fiirsaday oo fiican oo si fiican loo aasay ma ahayn waxay dadkii aasay waxay qariyeen jiirkooda iyo hilibkooda iyo meydkooda un bay qariyeen laakiin awood ma ayna u lahayn inay waxayaan inay aasaan oo aas fiican aasaan xabaashii baa duntay markii la ogaaday in xabaashu dunsan tahay dadkii deegaanka joogay baa soo qeeyay oo yidhi nimankii xabaashoodu way dunsan tahay dadkii baa is urursaday saasana loogu tagay xabaal ma ahayn meel la faarfaaray oo imikana duntay baa ahayn oo dayacantay marka waxa la go'aansaday in dib loo aaso naftooriyaasha xabaashooda dib loo habeeyo marka saas ay xabaal ma ahayn meeshii hogga ay lagu hogeeyay oo duntay oo dayacantay darteed baa loo soo saaray 13 sano in ku dhow baa ka soo wareegtay marka laga soo saaray meeshii hogga ahayd hore loogu xabaalay marka bal arintan mucjisada ee dhacday ee dadka deegaanka iyo guud ahaan Soomaalidu xoog badan aysan ka haynin waxa weeyaan
maxaa adigu ma ka mid ahay dadkii ka qayb galay aaskooda maxay saahayd waxa mucjisada aad ku aragtay anigu aaska waan ka qayb galay waxa weeyaan arrin aad ula yaabay anigu laakiin lama yaabanayn cabdullaahi raggaana qaanay waxa weeyaan mujaahidiin bay ahaayeen waxa la soo saaray horta waa la iga horreeyay aniga oo dad baa soo saaray dadkaasi waxay sheegeen koow in horta dhiiggii muuqdaba dhiiggii ay xabadii ku dhacday dhiiggii inay muuqdeen laba wiil oo naftuura oo raan lahaa cabdiraxmaan iyo ninka maxamed sheekh mukhtaar labadaba raantii baa ku yaalay maxamed basay garhkii baa sidii ugu yaalay hal mid oo isbedelay 13 sano nimankii aasnaa nin walba hebelkiisii baa loo garanayay kani waa maxamed basay kana waa cabdullaahi guud cabde kana waa maxamed sheekh mukhtaar kana waa cabdiraxmaan dheere afartoodii oo isku qasnayn oo mid walba midabkiisii iyo shakligiisii wata kaliya waxaa nafta ka maqnayd nafta unbaa ka maqnayd anigu waxaan ahay dadkii xabaasha sii diyaarinayay markii la keenay waxaan ku tala gashanaa xabaal dad dee lafoo 13 sano la waxeeyey laakiin mid walba isagoo jurmigiisii wata oo waxa weeyaan nin walba dhowr iyo 10 nin dabaabada hayso oo la hayo oo ayuuna dhicina meydka hayi muyarigay xataa culayskiisa maahin kare la leeyahay oo kala yaalo waxa weeyaan meyd suba baro oo imika dhinta weeg oo kafankii buuxiyay baa anaga noo yimid anagu meyd maanaas meyd waxa weeyaan dad waa hore shahiiday ma ahayn sida uu muuqatay meyd uu maanta inuu gooya aadmoodi baan yaa noo yimid dhiiggii baa ku yaalay tirihii baa ku yaalay midabkoodii baan isbedelin jiirkoodii iyo xooggoodii iyo culayskoodii iyo miisaankoodii baan isbedelin wax iska bedelay oo kaliya wax ka maqnaa oo naftii basa ka maqnay inay shalay dhinteen baan moodayay arrintaasi marka cibro ahaan dadkii deegaanka ama dadkii ni'aasayay cibro ahaan arrintaasi seeba idinla noqotay arrintaasi arrin dadkii ururka dhaliilayay ee wax ka sheegayay in arrin majhuusa ay ku noqoto maanta garowsadeen annagu laakiin waan ka filaynay inay sidan inay mujaahidiin xaq ahaayeen oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda u shahiiday si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV